السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر وناكسن maanta waxaan rabaa inaan sameeyo qado chicken iyo bariis. halka waxa ku jira xawaajiyaal isku dardaray oo ugu talagalay inaan chickenka marmariyo. marka xawaajiyaasha waxa waaye kabsar caleen, xawaaji dhudhub, basbaas, haruud iyo cusbo yar. insha Allah digaagta diyaar waaye marka waan marmarin. waa ujeedaan waan marmariyay marka waxaan sugayaa 30 daqiiqo ilaa hal saac ayaan rabaa inaan ku haayo waayo waxaan rabaa inay xawaajiyaasha chickenka gudaha u galo soo u fiicnaada. marka waan sugayaa. waa ujeedaan saana ugu shubay marka insha Allah. waa ujeedaan hadda marka hoos aan gelinayaa. waa kaas sidaas aan hoos u geliyay. waan sugaynaa markii la ka karto. chickenka ujeedaan hoos uu ka bislaaday marka hadda koraan ugu daarayaa. chickenkii wuu karay diyaar waaye hadda waan ka qaadayaa insha Allah. bariiska intaas aan ku karinayaa maraq digaag, heel, qolfo, xawaaji dhudhub iyo xawaaji kale. saliidii waa diyaar marka xawaajiyaashaan ku shubanayaa. bariiska hal saac camal biyo la yaalay marka qofkii rabo biyo loo dhigana qofkii rabana biyo lama dhiganayo laakiin aniga waxaan jeclahay biyo la dhigta ala. hadda bariiska aan ku shubay. kadib waa walaaqaysaa. waa ujeedaan si fiican buu u shiilmay. hadda biyo kulul oo diyaar ii ahaa kor ugu shubayaa. kadibna waa walaaqayaa. daboolkan saarayaa. waan sugay ilaa uu ka karo insha Allah. waa ujeedaan bariiska weli uu karihayaa. hadda wuu karay balse waxaan rabaa inaan ku daro kalar yar. wax yar oo kalar aan ku dari rabaa. yar oo kalar gaduudan ku daray. cagaarkan oo kasoo ku daray. marka waa ugu hurinayaa ilaa 10 daqiiqo camal kadibna waa diyaar oo laga qaadayaa. 10 daqiiqo ka soo wareegatay. hadda marka wax kaas waa la daminayaa. diyaar waa chickenka diyaar waa bariiskana diyaar waa. waa ujeedaan sidaa buu ku soo baxay bariiskii iyo chickenkiiba. marka ka soo sheekeeyay bariisan moslehna bariis ma bahaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.